السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka wada xarakeynaya inaad wada fiicantiin kulli protocol-ka xiriiryo noo sheego waxa kamid ah marka hore qofku inuu sheego marka aniga magacaygu waa Cabdi Samed Axmed Xuseen waxaan ahay arday barta sida dadka wax loo baro marka wad baan garoonkaygu waa inta marka xigtana dhamaantiin waa idin mahadnaqaya intiina goobtan joogta ma hadda alle kadib idinka wada mahadsan waxa si gaar ah ugu mahadnaqaya dhalinyarta qiimaha badan ee madashan caawa protocol-keedii iyo qabanqaabadeedaba iyagana la si weyn baan idinku mahadnaqayaa inta ka bacdi madasha kulli ujeedkoodu sidii marka hore iclaan ku baxay idinkuna noogu timaadeen dhamaantiin ugu martay qanaatin waxay xil wareejintaas guddoonku la kala wareegay xilka sida la sheegay markii hore inankii ugu horeeyay sheegana guddoonkaygu waa ka sanadlaa guddoonkaygu ugu horeeyay waxa la doortay 8 bishii 2018 kii xiga waxa 8 bishii 2019 kii xiga waxa 8 bishii 2020 kii xiga waxa 8 bishii 2020 kii xiga waxa 8 bishii 2022 ah walaalahayna aanu caawin la kala wareegayno marka runtii dimuqraadiyadda quruxda badan idinkoo qaarkiina sanado badan oo hore ay nala soo joogteen qaarna caawin ugu cusub tihiin iyadoo aan ku faraxsanahay waanan idinkooda mahad celinayaa imaanshihiina inta ka bacdi walaalahayga qiimaha badan leh xilka la kala wareegana caawa waxay la tahay inta ay hambaliyada mudan yihiin waxa ka badan inta ay ducada mudan yihiin waayo sideedaba xilku wax la yiraahdo ama mas'uuliyadda wax la yiraahdaa ma aha wax hanti maadiyo la nafacaasado waa wax mas'uuliyadda qaaditaankaas ee noloshaada culayska ku keenaysaana marka kuwantan qofka loogu hambaliyeen wax mudantiin loogu duceeyo laakiin halka loogu hambaliyeenayo waa halkay qofka wax loogu hambaliyeenaya isxilqaamka uu isxilqaamay uu u bareeray khatarta mas'uuliyadda inuu qaaday taasuun baa mudan in loogu hambaliyo laakiin ma jirto xil kale oo hantiya oo leeyahay xibal baa hilka hambaliyo hambaliyadu laakiin waa intaas waa dhiiranaanta qofku dhiiranaaday iyo mas'uuliyadda qaaday ayaa iyadana leh inta ka bacdi runtii intii aanu gudoomiye ahayn oo aanu maleynay intii aanu shaqeynay ahayd 12 bilood bishii kale iyadu waxay iska ahayd iska kala wareegay niyaama lagu galayay 12 bilood wixii ilaahay uu na garansiiyay ama wixii ilaahay noo suurto galiyay oo aanu aaminsanahay wixii aan rabnay inaanu qabanno inay ka yartahay in badan laakiin inta noo qabsantay ilaahay baan ugu mahad celinayna annagoo aan aaminsanayn waxa aanu qabanay ay yihiin wax yar haddana sidaas la eeg waxaanu aaminsanahay wixii aanu qaban kareynay wax in badan ka yar inaanu qabanay oo ama nugu suurtoobay qadarta alle ama nugu suurtoobay dadaal yaridayada mar walba waxaanu aaminsanahay wixii aan rabnay inaanu qabanno iyo wixii hamiga noo ahaa iyo wixii aanu garwadeenka sanadka hor noogu wareejiyay 100% inaanu wada gaadhin sideedabana bani aadamku wuxuu leeyahay qorshe daciifa maxaa yeelay qorshaha weyn ee kama dambaysta waxa iska le ilaahay wixii uu doono u baale bariba waxa dhacday aan qisadaas man hadalkayga rabeen ujeedkiisu ku sameeyay ku soo koobay waqtigii nabi maxamed cali salaatu wasalaam Makka ka soo baxay ko 13kii sano 10kii sano Madiina ku noolaan 13kii hore Makka ku noolaa Quraysh wax la gashay dagaal wajiye kala duwan lahaa mar walba dacwadiisna meel marinayay iyaguna dagaal gaar oo markuu kaasi suurtoobi waayo mixiga ay u gudbayeen bay ku qaadeen waxa dhacday dagaaladii iyo siyaasadii ay la galay ku waajahayeen markay meel dhex isla marayeen ayshday warbalninka dhinaca afkaarta diintan iyo systemkan uu keenay bal waxa isku dadeen inaad buridaan dabadeed waxay sameeyeen waaga carabi sida aynu ka war hayno diimaha iyo nabiyada waxay aqoon badan u lahayn ma ahayn oo waxa ugu dambeysay nabi Ismaaciil iyo nabi Ibraahim oo ay isaga reer bani Israa'iil ba ku wada tirsadaan dabadeed qolada fikradkeedu waxay yiraahdeen waryaareen qoladan reer Yasrib oo ah Madiina intii aan loo bixin Madiina reer Yasrib yuhuudan degan iyaga nabiyada yaqaanantiin wafti u dirsano aan raahno in nabiga laga soo dhaxbaxayo doonu garan weyn waxyaabo naga tawaweyn oo akhrinayay ninka waxyaabaan ku burino noo sheega wafti bay markaa u direen waftigii markii ay tageen Yasrib oo ahayd Madiina ayay u sheegeen ujeedka uu socday waxa ninka noocaasa oo waxaan anagu caado u lahaan jiray idinku caado u lahaydeen anaguna aanan aqoon badan lahayn idinku taqaaneen oo idinka soo bix jiray buu noola yimiyay bal waxaan u baahanahay waxyaabo mantiqa ama waxyaabo macquula oo aanu doodiisa ku burino iyaguna sidaa u diideen waa dad aaminsanaa ma garanaysaa tooda hore jaahiliyada dabadeed su'aal bay soo dhiibeen isku sidkaneedo laba su'aalood ka koobnay su'aashaas waxay ahayd warninku soo nabi ma hoosaysa mu sheegaha su'aal weydiiya waxaad weydiisan wax nooga sheekaysan qisadii nabi Yuusuf oo sidoo kale tii nabi Yaaqoobna ku lamaan tahay hadduu qisadaas sidaa idinka sheekeeyo dinku nabi waxaan sheegayaa wada hadduu laakiin ka sheegi waayo oo wasidii dhalinyartu tushka carro waxa ka dhigantay wixii wada inay saa ku saaf jartaan su'aashii bay soo qaadeen uu yimaadeen waxa ku yiraahdeen maanta xujaan wadanaaye qisadii nabigi nooca aha oo ka hor aan wali suuradii soo degay bal nooga waran
ilaahay amarkii isla markiiba nabiga wax lagu soo dejiyay suuratu yuusuf dabadeed uga warramay way noqdeen waxa dheer ninka su'aal jilicsan bay noo soo dhiibeen bal nagu celiya waxa dheer waryaare ninkani nin su'aalaha jilicsan iyo nabiyada waxa markiiba uu ka gaarsiiyay bal waxaan u baahanay su'aalo adagoo mantiqa baan u baahanay dabadeed waxa dheer waa saddex su'aalood oo aanu aaminsanahay ciidan nabi ahayn inaanay ka warrami karin ayaanu idin dhiibeen mid ahaan waxay ahayd qisadii suurad asxaabul kahf dhalinyadii godka qisana waxayd qisadii ninkii bariga galbeed tagay oo iyagu magaciisa aana sheegin laakiin marka dambe dulqarnoon dee la sheegi doono nabigu uga jawaabi doonana ta saddexaadna waxay ahayd naftu waa maxay ruuxdu waa maxay bal saddex su'aalood u tago waliba saddexii jawaabood waa kuwaasi bal siduu kaga jawaabo eeg halkan u socda waa halkane nabiga cali salaatu wasalaam iyo wax ku yiraahdeen bal warkaagii war kale maanta ka sinaayay saddex su'aalood nooga jawaab nabigu cali salaatu wasalaam inuu nabiyo isku kalsooy xaqiiq wixii siiyay isagoo isku kalsooy wuxuu ku yiri bariye ii kaaliya ana saddexdaa bid ka jawaabayay dabadeed wuxuu ilaaway insha Allah buu ilaaway bari tooladii markii la balaneed booyna insha Allah baan oran arrinkii baan ku xidhinay waxyigiiba ku soo degi waay maalintii xigtu ku soo degi waay maalinimadii xigtu ku soo degi waay isbuuc bay qaadatay waxa dhawaryaha waa kaase su'aalihii ka jawaabi kara waa laba isbuuc bay qaadatay iyaguna waxay aamineen su'aalahoodii inuu warkiisii soo afjaray bay aamineen dabadeed markii ay laba isbuuc mareysay ayuu ilaahay soo dejiyay suuratu kahf oo dhameystiran dabadeed saddexdii su'aalood ay wadeen ilaahay suuratu kahf uu kaga jawaabo dhalinyaradu waa kaga warramay godka qisadii dulqarnayna waa lagaga warramay naftana waa laga jawaabay la way su'aaluunaka can ruuxi iyadana waa taayadu ka jawaabayso halkan u socda waa halkane suurada sidoo kale ilaahay wuxuu nabi maxamed ugu sheegay wala taqulana li shay'in inni fa'ilun dhalika qada illa in sha Allah yani nabi maxamed ilaahay wuxuu ku leeyahay ma oran kartid ama waxba ma sameyn kartid ilaa iyo anagu aanu doonno mooyaane waxaan uga soconaa inagu sideenaba bid'aadam markaan qorshay sula nimaando niraahno waxaasanu qabanayna kii Allah ka weyn macnaheedu aanu soo daliishadana wuxuu yahay anagu wixii aan islahayn qabo intii Allah ka weyneed intii suurta gashayna insha Allah ku suurta gashabeed intii aanu ka tagnay ama aanan eeba ku xidhan ama eeba isagu hadoon inaan qabsoomina may qabsoomin laakiin mar labaad waxaan leeyahay intii aan rabnay maanu wada qaban inta aanu qabanina lama yaro runtiina waxa jirta bini'aadamka marka gudoonka la sheegay dadku wuxuu fahmayaan waxaan la qabtay in ciidan qabatay wax laga yaabo dadku caaw hadii lahaan inta soo qabanay ina Muuse anaga Maxamed inaan qabanay sidaas ma aha yasi u dhowtoona waxa weeye xubnahan baa wada qabtay annaga wada qabanay annaga wax laga yaabo in yar inaan qabanayba wax laga yaabo xubnaha iyaga hadii la wada tiriyo anigu inaan noqdo koogu wax qabadka yar laakiin mas'uuliyadii iyo garwadnuun baan hayay ee iyagu baa wada shaqeeyay wax walbana si midnimo ah oo dhameystiran ayaan ku wada qabanay mar kale weydii mahad celinaya runtii waan jeclaa magacyadiin iyo shakhsiyaad badankooda inaan mid u wada xuso laakiin kama galiyoonayo laakiin waxaan rabaa hal shakhsiyo halkan ku sugan oo aan aaminsanahay inuu kamid ahaa shakhsiyaadka intii aan wada shaqeynay ama aan bartay ugu goobsanaa inaan sheego waa laba shakhsi mid ma joogan filaya mid ahaan ma sheegaya markaan iyaga sheego inta kale waxa ka dhigan dadku inay wada gob yihiin bay ka dhigantay badankoodu laakiin waa hormuudka shakhsigaas aan sheegaya Macal Bashiir Maxamed Macal Bashiir aniga aragtideeda inta brand ka qiyaasayo wuxuu ka mid yahay dadkii ugu goobsanaa ee aan la dhaqamay sidoo kale waxa jira isna nin kale oo macallin ah oo aan caawa goobtan joogin oo la yiraahdo Macallin Hayaan Maxamed Xise baa la yiraahdaa iskuulkaaga ma haysta isaguna bartan ma joogo runtii shakhsiyaadka goobta ah oo ka mid ahaa dhammaantiin hadday tiri waxna aaminsanad gub wadatiin qof walba oo aan magaciisa sheega gubnimo ku aastaysan yahay mar kale waa idin mahad celinaya xilkina waxay ka dhigantahay in sida lagu kala wadaagay idinku ogeydeen gudoomiyaha iyo dhamaantayba saxiyada kala qaadanay furayaashii kala qaadanay dil kala wareegnay iyagana walaalahay waxaan aaminsanahay inay naga karti badan yihiin waxaan aaminsanahay intii aanu gaarsiinay in ka badan inaan qabanno waxaan aaminsanahay sida aan u dooranay inay tahay xaqiiqadooda dhabta ah ee ka dhigan tahay wassalaamu calaykum